gabadhan yar ee caatada ee surwaalkeeda iska wadato ha u malaynin qof caadi ah. Su'aal ayaa la weydiiyey. Su'aashan la weydiiyey jawaabta ay ka bixisay waa mid aan maskaxdaada adiga xataa kusoo dhicinin. Su'aashan oo kale haddii lagu weydiiyo waxaa lagu yiri maxaad qabataa? Waxay ku jawaabtay waxaan ahay kalkaaliso caafimaad. Kadibna waxaa la yiri maxaad ku dooratay in aad kalkaaliso caafimaad noqotid? Jawaabta ay su'aashan ka bixinayso ama hadalka meeshan ay ka sheegayso mid adiga maskaxdaada kusoo dhacaya maaha. waxaan waa booskeeda haddii aad taagnaa lahayd jawaab kale in aad ka bixin lahayd. hadda adiga muuqaalkan daawanayo waxaa tahay dhakhtar, waxaa tahay dhakhtarad, kalkaaliso caafimaad, kalkaaliye caafimaad, injineer, makaanig, yacni howlo badanaa ku jirta. waxa ayaa soo baratay cilmigan aad soo baratay intaadan baranin ka hor. haddii lagu dhihi lahaa maxaad ku dooranaya waxaan aad baranaysid, maxaad ku jawaabi lahayd? jawaabtaas qaybtiisa commentiga inoogu soo qor. haddaan mar kale kuugu soo celiyo, waxaa tahay dhakhtar, kalkaaliye, kalkaaliso, injineer, makaanig, howl aad haysidba. howshan aad haysid maxaad ku dooratay in aad qabatid? maxaad ku dooratay in aad cilmigan baratid? jawaabtaas qaybtiisa commentiga noogu soo qor. haddii aan usoo laabto mawduuceena, gabadhan dhalinyarada ah, wiil ka mid ah wiilasha muuqaalada jidadka ku duubo ayaa waxa uu weydiiyey isla su'aashan. waxa uu ku yiri maxaad qabataa? waxay ku jawaabtay waxaan ahay kalkaaliso caafimaad. waxa uu ku yiri maxaad ku dooratay in aad noqotid kalkaaliso caafimaad? jawaabtan mid heer sare waay. waa jawaab aan innaba caadi ahayn. waa jawaab qof iska caadi ah maskaxdiisa aanan kusoo dhicinin. gabadha yar ee caatada surwaalkeeda iska wadato, iska faraxsan, jawaabta ay soo tuurayso xitaa dad waaweyn haddii la weydiiyo maanta su'aashan jawaabtan oo kale ma bixin karaan. waxay ku jawaabtay waxaan ku doortay. waxaan arkay aayad ka mid ah qur-aanka kariimka oo allah tabaaraka wa tacaala uu ku leeyahay naf qofkii badbaadiyo waxa uu la mid yahay adduunkan oo dhan bini'aadanka ku nool isaga oo badbaadiyey. qof bini'aadana qofkii badbaadiyo wuxuu la mid yahay bini'aadanka oo dhan isaga oo badbaadiyey. sidaa darteed ayaan u doortay in aan noqdo kalkaaliso oo aan badbaadiyo bini'aadanka oo dhan. haddaba haddii aad ogaatay su'aashan jawaabta ay ka bixisay gabadhan, maxaa kugu soo dhacay? maxaase dareentay? ugu dambeyn adiga muuqaalkan daawanayo, xirfadaada ama shaqada aad haysid oo aad soo baratay, maxaad ku dooratay in aad baratid kadibna aad howshan qabatid?